السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن حرسي حروا أنا وحر عبديه أحمد قولي يويه أنا source أهان أسوق هذا أنا reference أهان لو book وحروا أنا قاعد بوجان منه حقرا جفود أحمد قولي من قبل كيو قرا هو حقرين إن عدو جيل الدراي أحمد قولي أو ها شيء محارضة حلي وحال قرا من لك منه حوا مفتوح حبش كي عربي هاي أو عرب فقيه قرا أحمد بن عبد القادر midka carabiga waxaa laga dhigtaa jaamacadda King Saud University waa wixii faahfaahin isla fiiri doonaa laakiin hadda waxaan rabaa inaan caddeeyo buugan koowaad futuuxa in jaamacadda King Saud laga dhigto because of background-ka ku qoran tahay ayadoo dheesay copyright by King Saud University so marka let's check meel ay kaga qoran tahay buugga King Saud University yep awjida malaya page-kan dhexe copyright at King Saud University your background jaamacadda okay not only that page this page and this page with the page kan oo kala page qaar ma si fiican loogama jeedo page qaarna waa laga arkaa anyway buugan marka waxaa la qoray 963 waxaa qoray maxaa la carab faqiih magaciisa Ahmed ibn Abd Qadir waxaa xifdiyay Maxamed ibn Ibrahim marka waxaa tagaynaa page-ka oo qabiilkiisa ku qoran yahay haduu Ilaahay idmo waxaa tagay buuga qofka heesto page 6 baalka dhinaca midigta xigo naakana qabiilati Ibrahim ibn Ahmed صاحب بلاد هوبات من قبائل بلاو مفهمت هذه هلاد la saari karo isku daya in halaad saaro ما صار كرب يا لكن مكان من صاحب بلاد هوبات من قبيلة بلاو واجفه كترسن لفظ ده اسمه صالح وكترسن سيحاول كرله اوكي ماشي waxaa ku cad inuu بلاو ka soo jeedo oo dadka deegaankaas hoobaad deganaya okay meeshan kuma qorno inuu marixan yahay kuma qorno inuu ki yahay Gerkombe kuma qorno inuu yahay Gadabursi okay bلاو ka qoran. Okay, let's go to the other book. Ka buugan joogno buugan waxaa la the left-handed man oo laga jeedo maxaa la yiraahdaa garanya Axmed Gurey. Okay, buugan taariikh nololeedka Axmed Gurey ka hadlaa waxaa qoray Takla Saatiq nin taariikhyahan Ethiopiana Amhariga asoo kaashanaya maxaa la isoo sameynaya state research kaashanaya kaniisadan Amharada iyo oo wuxuu dib u raacay Axmed Gurey ahaa maxay ka qoreen Amharada la direysay meesha wuxuu ku cadeeyay Axmed Gurey inuu ahaa nin karan la so marka in which page oo Axmed Gurey ku cadeeyay inuu nin karan la yahay we'll see inshallah 227 inay hada jacalada qaldan meesha family trees ku qoran yahay dagaaladii ogal waxaan tirada baan soo gudbin macnaha dagaalada Itoobiya kale Amharada la galay guulihii uu ka gaaray waxaas ka hadlayaan okay hadana qaldaneen qofkii kulli adariis Amharic ma naqaan man wacabi insha Allah screenshot ka qaadi doonaa screenshot-kaas waxaa la aadi doonaa maxaa la Google-ka translate ku sameyn doonaa ciduu yahay isla arki doonaa haduu Ilaahay idmo meeshan family tree Axmed Gurey ku qoran Axmed Gurey kuma aha qabiilkiisa waalidkiisa family tree-giisa meeshan ku qoran okay so the next page oo page-kana waxaa ku qoran marka Axmed Gurey asal ahaan qolama ana fahantina malena screenshot ka qaadana adinka u jeedin insha Allah okay wala heesana malena let's go to Google let's go to Google okay asla eegina marka haduu Ilaahay idmo page kana asla fiirina Axmed Gurey yuu ahaa select qoraalka qaadanay translate leenahay into Somali maxaa ku soo baxay Garaad Ibrahim waxa u dhashay Imaam Ahmed bidix macna Gurey kala jeedaan oo dhamaantood ka soo jeeda hawiye kor ku xusan gaar ahaan laanta karanle qabiilka waafan marka dadka 9 ka sheegto Axmed Gurey inuu ahaa maxaa la sheegeen inuu ahaa Gerkombe iyo inuu ahaa Marexaan iyo
meesha inay ku haraan rajiya insha Allah haduu ilaahay marka waxaa dhihi lahaa walaalahay been fakata ruma gaartaan lahay inay ka waantoobaan taariikhda beenta ee waalidiintooda u sheegeen oo afka laga sheegtay laga macna isaga faanka marka haddii aan inta qoraal soo dhigo aadho Axmed Gurey nin hawiya nin karanlaan nin hebel wax ceeb ma aha qofka nasabkiisa inuu wuxuu yaala sheeganay ceeb ma aha although in nasabkaaga ku fahanti diinta ay qabto marka haddii hawiya aan sheegno in qalbada xanuunto qabiil waa ceeb Soomaalnimo hala aado markii adinka danihi tiina raacanaysiin oo ka xishoonayna qabiilkiina xusteen laakiin qof hawiya rabo inuu taariikhdiisa sheegto in Soomaalnimo la aado Soomaalnimada beenta waa la isla fahmay markaan waxaan dhihi lahaa qof walba taariikhdiisa ku faano taariikhda aadan lahayn afku yeelamaysid insha Allah waxaan rajaynayaa hadii taariikh wanaagsan ay samaysatiin